salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada kalmooy mediya iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolka sanaag iyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo kuwa siyaasadeed ka wada deegaano ka tirsan gobolka sanaag gaar ahaan degmada badhan oo uu ku sugan yahay waxaan kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyada siciid cabdulaahi deni oo halkaasi ka wado ciidamo uu maalinnimadii shalay ahayd tababar u furay iyo sidoo kale dhinaca maamulka somalilan oo bilaabay diyaargarow iyo abaabul ciidan oo aad u xoogan kaasuu uu doonayo inuu kula wareego deegaanada shidan waqdariye iyo yube halka ciidanka difaaca deegaankana lagu soo warramayo in ay difaacyo iyo fariisimo cusub ay ka samaysteen meel aan ka fogeyn duleedka magaalada ceerigaabo soo dhowow qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa inta tabintan aynu ku guda jirno aragtidaada qaybta faallada ku dhibo maxaa ku soo beegay wakhtigan dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo kuwa siyaasadeed ee siciid cabdulaahi deni uu ka bilaabay deegaanada gobolka sanaag ma waxa uu doonayaa inuu ka hortago qorshaha maamulka waqooyi bari soomaaliya uu ku doonayo in gobolka sanaag guud ahaanba gacanta maamulkaasi lagu soo geliyo hagaaga sidaad la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka sanaag waxa uu ahaa mid ay ka taagan tahay xasarad aad u xoogan oo u dhexaysa dhinacyo kala duwan kuwaasi oo kale ah maamulka puntland somalilan waqooyi bari soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka oo si weyn u diidan joogitaanka maamulada puntland iyo somalilan iyadoo ay taagan tahay xiisadda markaasi dhinacyadaas u dhexaysa ee gobolka sanaag ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si weyn u soo ifbaxay in maamulka ahaa markaasi waqooyi bari soomaaliya uu qorsheynayo inuu la wareego deegaanada gobolka sanaag ee saaran xeebaha sida laasqoray waqdariye iyo sidoo kale deegaano kale oo dhowra maamulka waqooyi bari soomaaliya ayaa waxaa lagu soo warramayaa in la wareegista laasqoray ay tahay qorsho istaraatiiji ah oo ay dalal kale markaasi gadaal ka taagan yihiin oo ugu horreeyo dalka turkiga ayaa doonaya in laasqoray uu ka dhisto deked iyo sidoo kale saldhig military oo weyn halka israel oo dhinaca somalilan taageero siinaysan ay doonayso in gobolka sanaag ay saameyn ku yeelato dhinaca puntland imaaraadka ayaa qorsheynaya in laasqoray uu durbo ka bilaabo dhismaha deked caalamiya isagoo horey u joogay garowe iyo sidoo kale boosaaso sida xogaha ay tilmaamayaan maamulka waqooyi bari soomaaliya oo kaashanaya ciidamada difaaca deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan waday iyada oo maalmo ka hor deegaano ka tirsan gobolka sanaag tababar loogu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta waqooyi bari soomaaliya ee gobolka sanaag kaasooy goobjoog ka ahayeen wasiirka amniga maamulka waqooyi bari soomaaliya iyo sidoo kale taliya cabdimudoobe oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidanka maamulka waqooyi bari soomaaliya dhaqdhaqaaqyadaasi oo socda waxaa durbo markaasi lagu soo warramayaa in maamulka puntland uu dareemay cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhankaasi waxaana madaxweyne siciid cabdulaahi deni safar deg dega ugu ambabaxay degmada badhan kaasi oo shalay halkaasi gaaray waxaana halkaasi uu ka bilaabay kulamo siyaasadeed iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa maalinnimadii shalay ahayd mid ka mid ah xerooyinka tababar ee degmada badhan waxa uu tababar ugu furay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka puntland waxaana uu kula dardaarmay inay ciidamadaasi ay yihiin kuwii loogu talagalay sugidda amniga guud ahaan deegaanada puntland gaar ahaan gobolka sanaag isagoo ku ammaanay doorkii firfircoonaa ee qaar ka mid ah ciidamadaasi ay ka soo qaateen howlgalkii calmiskaad waxauna sheegay in loo baahan yahay in inta tababarka ay ku jiraan ay si wanaagsan markaasi ugu hoggaansamaan awaamiirta saraakiisha tababarka bixinaysa isagoona fariin adag u diray ciidamo kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyey sheegayay inay ka gadoodsan yihiin islamarkaana ay ka baxeen ciidamada dowlad goboleedka puntland waxaana uu sheegay inaan loo baahnayn islamarkaana loo dulqaadan doonin in shakhsi uu markaasi iskala baxo ciidamo islamarkaana uu sheego inuu ka baxay puntland waxa uu yidhi falalkaasi maahan kuwa la aqbali karo deni ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo kuwa ciidan ee uu ka bilaabay deegaanada gobolka sanaaga uu markaasi doonayo inuu kaga hortago qorshaha maamulka waqooyi bari soomaaliya uu ku fashiliyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo isagoo ah markaasi hogaamiyaha maamulka puntland ee wakhtigan waxa uu ku qanacsan yahay in gobolka sanaag qayb ka mid ah somalilan ay maamusho walow dastuurka maamulka puntland ay ku qoran tahay islamarkaana siciid cabdulaahi deniba uu ku faano mar kastana uu ku soo celceliyo in gobolada sool iyo sanaag ay si dhammaystiran ka tirsan yihiin maamulka puntland laakiin marka la fiiriyo guud ahaanba goboladaasi waa kuwa inta badan maamulka puntland uu ka arriminin guud ahaan gobolka sanaag ayaa ka maqan aan idhaahday gobolka sool ayaa ka maqan gacanta maamulka puntland halka gobolka sanaagna qaybo ka mid ah uu maamulo maamulka puntland kuwaasi oo ah degmada badhan laasqoray iyo deegaano kale oo dhowr ah laakiin magaala madaxda gobolka sanaag iyo deegaanadii ugu muhiimsanaa inta badan waxaa gacanta ku haya maamulka somalilan halka kuwo kalena ay maamulaan ciidamada difaaca deegaanka oo ah deegaano istaraatiiji ah waana deegaanada shidan waqdariye iyo sidoo kale yube halka xingalool iyo deegaano hoos yimaadana maamulka waqooyi bari soomaaliya uu gacanta ku hayo tallaabada siciid cabdulaahi deni ayay dad badan ku tilmaameen mid uu doonayo inuu ku hagaldaaciyo qorshaha maamulka waqooyi bari soomaaliya
wixii ka soo kordho guud ahaan wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo kuwa militari ee Siciid Cabdullaahi Dani uu ka wado deegaanada gobolka Sanaag. Markana isla gobolka Sanaaga, maamulka Somaliland ayaa lagu soo waramayaa inuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xooggan, iyadoo ciidamadii ugu badnaa iyo hub aad u culus uu ku soo daabulay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag, taasi oo lagu tilmaamay mid maamulka Somaliland uu isugu diyaarinayo duulaan militari oo uu ku qaado deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada difaaca deegaanka. Somaliland ayaa dhowr jeer horey ugu hanjabtay inay gacanta ku dhigi doonto deegaanada ka maqan waqti xaadirkan gacanteeda ay maamulaan ciidamada difaaca deegaanka. ciidanka difaaca deegaanka oo ka jawaabaya dhaqdhaqaaqa Somaliland ay bilowday ayaa waxaa dhankooda fariisimeys difaacyo aad u xooggan ay ka samaysteen deegaano ka baxsan Waqdariye, Shidan iyo sidoo kale Yube, iyagoona lagu soo waramayo in ciidamadan ay isballaarin wadaan maadaama Somaliland dhaqdhaqaaqyo aad u xooggan ay bilowday. ciidamada maamulka Somaliland ayaa waxa ay u muuqdaan inay doonayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay weerar militari ugu qaadaan ciidamada difaaca deegaanka. Somaliland iyo Puntland ayaa la tilmaamayaa inay heshiis ku yihiin in meesha ay ka saaraan cid kasta oo ka aragti duwan ama ka soo horjeeda, waxaana labada dhinac markaasi lagu eedeynayaa hogaamiyayaashooda Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro inay u heshiiyeen bulshada gobolka Sanaag si markaasi ay meesha uga saaraan awoodda bulshada gobolka Sanaaga. ciidamada difaaca deegaanka iyo sidoo kale ciidamo cusub oo dhowaan ka soo baxay kuwa maamulka Puntland oo gadoodsan ayaa waxay wacad ku mareen dhankooda inay difaaci doonaan deegaanadooda kana hortagi doonaan damaca Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale Siciid Cabdullaahi Dani. maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa dhankiisa maalmo ka hor tababaro soo xiray deegaano ka tirsan gobolka Sanaag, waxaana dhanka maamulka waqooyi bari ka soconaya diyaargarow iyo dhaqdhaqaaqyo aad u xooggan. Taliya Cabdi Mudoobe oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo maalmo ka hor degmada aan iraahdo gobolka Sanaag ka hadlayay, waxa uu sheegay in horey loogu soo kala baxay gobolada Togdheer iyo sidoo kale Sool, waqti xaadirkana la joogo xilligii lagu kala bixi lahaa gobolka Sanaag, waxaana uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin in gobolka Sanaag oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u aqoonsan tahay maamulka waqooyi bari Soomaaliya in waqti xaadirkan ay gacanta ku hayaan cid kale oo ay maamusho. waxa uu yidhi Taliya Cabdi Mudoobe, lama aqbali karo in gobolka Sanaag ay gacanta ku hayaan cid kale, isla markaana maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo ka tirsan yahay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku og tahay uu gacantiisa ka sii maqnaado. maalmaha soo socda waxa uu yidhi Cabdi Mudoobe, waa lagu kala bixi doonaa gobolka Sanaag horeyba sidii loogu kala baxay gobolada Sool iyo sidoo kale Togdheer. Cabdi Mudoobe oo ah door weyn ka qaatay dagaaladii waaweynaa ee ka dhacay gobolka Sool, isla markaana Somaliland si weyn ula dagaalamay dhowr jeerna ay sheegtay inay dishay laakiin been noqotay, ayaa waqti xaadirkan waxa uu muuqdaa in mar kale qoriga u qaadan doono sidii gobolka Sanaag looga saari lahaa joogitaanka maamulada Somaliland iyo sidoo kale Puntland. laakiin labada maamul ee Puntland iyo sidoo kale Somaliland ayaa dhankooda bilaabay dhaqdhaqaaqyo aad u xooggan oo ay kaga hortagayaan qorshaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya. wixii ka soo kordho guud ahaan wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa aragtidaada qaybta faallada nugula wadaag. Somaliland ma laga saari doonaa si la mid ah sidii gobolka Sool Sanaag waqti xaadirkan oo maamulka waqooyi bari ku guuleysan doonaa in gobolka Sanaag gacanta uu ku dhigo? aragtidaada qaybta faallada nugula wadaag. qorshaha Siciid Cabdullaahi Dani ee dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo sidoo kale kuwa siyaasadeed ee gobolka Sanaag uu ka bilaabay waqti xaadirkan maxaa ku soo beegay, maxayse tahay aragtida ama siyaasadda markaasi ka dambeysa?